soo dhawaada saaxiibayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee suuqa cryptocurrency market update haddii aan ka bilowno waxaan u jeednaa qiimaha BTC inuu marayo 62633 Ethereum 1758 BNB 574 XRP $1.12 Solana $80 haddii aan fiirno dhinaca fear and greed ka waxaan u jeednaa si guud suuqa inuu yahay 26 haddii aan fiirno Bitcoin fear and greed ka isagana wuxuu marayaa 23 shalay wuxuu ahaa 22 isbuucii la soo dhaafay wuxuu ahaa 18 bishii la soo dhaafay wuxuu ahaa 12 haddii aan fiirno crypto bubbliska waxaan u jeednaa hourly-ga in suuqa maaragtay dhowrkan coin lit iyo triple v iyo pump maana inta kale inay yihiin perish haddii aan fiirno daily oo kale lab iyo coinkan kale ay ku qoran tahay ETHFI ayaa ugu kacsan iyo lit iyo PCH Bitcoin Cash marka coinka kale inay bearish ku jiraan ayaa u jeednaa haddii aan fiirno weekly-ga coinanka xoogaa waa yara bullish oo isbuucan suuqu waa soo laabtay haddii aan fiirno monthly-ga waxaan u jeednaa gram inuu haysto kicitaanka u sarreeya ee maaragtay monthly-ga waxaa ku sii xiga coinankan pit lab lit seg jam arrow iyo WBT haddii aan fiirno sanadlaha yearly-ga waxaan u jeednaa MSEC triple v iyo gram iyo tax inay haystaan haddii aan fiirno market cap-ka BTC ayaa xoog ku haysata BNB Ethereum USDC Solana iyo TRX ayaa haysta saaxiibayaal haddii aan fiirno dhinaca iyo maaragtay taxliilinta trading view haddii aan fiirno BTC waxaan u jeednaa inay sameysay xoogaa maaragtay soo kabasho inay sameysay oo laga soo celiyay aaga $57909 haddana laga soo celinayo zoonkan 63000 laga soo tuuray haddana ay marayso 62600 marka saaxiibayaal muuqaaladii hore haddii aad dib u daawatid waliba muuqaalkii u dambeeyay ee market update-ka waxaan sheegnay in dhaqaaq BTC ay sameyso u baahan tahay bear trap-kiina waa ka dhacay meesha zoonka inta hoos jabsaday then soo laabtay taas waa inaan ogaataa bear trap-ka sidan buu u shaqeeyaa waliba xoogaa laba yara taabashay sameysay kadib ayay maaragtay dhaqaaq sameysay marka waa muhiim inay maaragtay mar kale xoogaa soo yara karaan qaadato si ay dhaqaaq u sameyso taas ayaa maaragtay qasab ku ah sababtoo ah coinka waxaan sheegnay mar walba uu dhaqaaq u baahan yahay inuu nasiino u baahan yahay marka aagan 59ka inay ku soo laabato ilaa 60ka waa muhiim si ay markaa dhaqaaq u sameyso zoonkana u noqdo zoon xoogan oo aan jilicsaneyn sidoo kale saaxiibayaal trendline-kan diagonal trendline-ka ah waxaan u jeednaa in ilaa iyo hadda aan la taaban mar kale dhaqaaqii u dambeeyay ee daashada ahaa haddii aan fiirno Bitcoin dominance ama BTC dominance-ga isagana waxaan u jeednaa in trendline-kan diagonal-ka ah oo weli dhaafi laayahay kanalka hadda furan ayaa xoogaa yara madax kala baxay markaa siduu ku xirmi doonaa trendline-ka korkiisa ku xirmi doonaa ama hoostiisa ku xirmi doonaa kaas ayaa go'aami doona sidoo kale haddii aan fiirno USDT dominance-ga waxaan u jeednaa inuu marayo xilligan 8.58 oo zoonkan yimid kadib markii uu suuqu daadanayay isaga ayay lacagta ka baxaysay waana seelkan dhacay taas oo ina ogaataa marka haddii hadda uu sameeyo dhaqaaq oo ku tagi karo zoonkii hore oo kale meeshaas waxaa waaye suuqa ay ka go-an tahay BTC-na inay 60,000 ilaa 59,000 ku laabato waxba uma jirto taas waa ina ogaataa haddii aan fiirno saaxiibayaal total 2ga waxaan u jeednaa total 2ga si guud zoonkan in laga ixtiraamay oo xaggan ka laabtay sidoo kale waxaan u jeednaa diagonal trendline-kan laga soo bilaabo bishii October 8 2025 ilaa iyo hadda inuu ku jiro daadasho aan caadi ahayn inuu ku jiro ayaan u jeednaa oo suuqa xilligaas wuxuu ka soo dhacay haddii aan fiirino market cap-ka 1.8 trillion buu ka soo dhacay maantana wuxuu marayaa 989 bilyan waa dareemi kartaa wax ku dhow 1 trillion ayaa ka baxay that's why loo xasuuqay altcoins-ka marka saaxiibayaal hadda haddii laga celiyo zoonkan waxaan ka fili karnaa waxaa waaye
in uu maaragtay kusoo laabto aagan kadib uu dhaaq sameeyo ayaan ka fili karnaa. sidoo kale haddii aan fiirino goldiga oo kale isagana xoogaa waa iska yara bullish waaye. haddii aan fiirino ethereum iyadana xaalkeedu waa sidee. ethereum waxaan u jeednaa in zoonkan ay soo taaban zoonka kalena ay ku meereysanayso, marka waa muhiim inay maaragtay dhaqaaq dhinacaana ay soo sameyso mar kale si ay u sameyso dhaqaaq sare ilaa iyo aagan 2130 inay xoogaa soo yara nasato ayay ugu laaban kartaa. haddii aan fiirino dhinaca iyo Solana oo kale waxaan u jeednaa Solana in ay weli zoonkan ay maaragtay kusoo laaban oo aad ugu soo laaban xoogaa madaxa la soo gashay oo kaliya, marka haddana ay sameynayso noqosho. marka Solana waxa waaye ilaa ay zoonkan timaado oo ay dhaafto waxa waaye xaalkeedu allo sahal waaye. marka waa in patternkan bearish falaaga ay suuqa lagu daadiyay ay ka soo kormarto halka ugu dhow rajadeeda ku xiran waa midkaas. sidoo kale haddii aan fiirino waxaan u jeednaa in Solana zoonkeeda ugu xoogan maaragtay uu yaalo. hadda zoon ayaa ka sarreeya laakiin zoonkeeda ugu xoogan waa zoonkan 96000. zoonka kale ugu xooganna waa zoonkan ilaa iyo 150 149. saaxiib yaal haddaan fiirino dhinaca fundamental newska haddii aan fiirino maanta saaxiib yaal maadaama xad tahay wax news ma jiro, shalna news ma jirin. beri maaragtay newska beri jira haddii aan fiirino kale waxaa ugu waaweyn S&P Global Service PMI oo June ah. sidoo kale newska waxaa la saadaalinayaa inay kusoo baxo 51.3. newska markii in loo jeer soo laabtay amaleysa isagana waxaa lagu saadaalinayaa 54.2. waase arki doonaa qaabka uu kusoo baxo. haddii aan fiirino saaxiib yaal dhinaca liquidationka oo kale waxaan u jeednaa in liquidationka ugu weyn oo ka dhacay BTC marka loo fiiriyo saacadihii u dambeeyay 1 hour ugu dambeeyay. haddii aan fiirino 24 saac u dambeeyay Ethereum ayaaba hogaaminaysa oo 75 dadkii selka u galay ayaa loo tuuray. BTC waxaa loo tuuray 67. others-kuna waa 14 milyan. okay haddii aan fiirino coinanka kale Hamster Doge Hamster sell baa loo tuuray. Doge waxaa loo tuuray buy. ADA waxaa loo tuuray sell. Lab waxaa loo tuuray sell. haddii aan fiirino 24 saac u dambeeyay liquidationka guud ee dhacay kan oo kale 4 saac oo sheega aan ka dhigano last 24 hour 221 milyan ayuu sheegayaa. si guud marka waxaa loo tuuray long 84 milyan, shortna waxaa loo tuuray 137 milyan. si guud marka waxaan u jeednaa Binance in uu ka dhacay liquidation dhan 85 milyan, long in loo tuuray 38, short in loo tuuray 46. Bybit in si guud loo tuuray liquidation 35 milyan, 2 milyan oo ka dhacay long, 25 milyan oo ka dhacay short. Get ayu waxaan u jeednaa in asana la tuuray 35 milyan, 6 milyan loo tuuray long, 28 milyan loo tuuray short. Hyperliquid ayaa ku xiga oo ah 22 milyan, isagana 4 milyan ayaa loo tuuray long, 18 milyan ayaa short ayaa loo tuuray. dadka suuqa selka u galaya ayaa la xasuuqay sida meesha ka muuqato. okay egas isagana waxaa ka dhacday 14 milyan, 8 milyan oo long ah iyo 6 milyan oo short ah. haddii aan fiirno saaxiib yaal dhinaca quarterly return-ka Bitcoin-ka saaxiib yaal waxaa xirmay quarter 2gii oo bisha June ku ekaa. marka waxaan u jeednaa in uu ku xirmay 14.09% minus ah inuu ku xirmay ayaan u jeednaa. marka quarterkii labaad Bitcoin ku xirmaya minus, quarterkii koowaad wuxuu ku xirmay 22.2% oo minus ah ayuu ku xirmay. quarter 2 wuxuu ku furmay plus 3.1% ayuu ku furmay ayaan u jeednaa. marka saaxiib yaal sanadkii hore 2025 quarter 2ga wuxuu soo xareeyay 29.74%, quarter 3gana wuxuu soo xareeyay 6.31%. marka labadan quarter ayaan fiiri doonaa. haddii BTC uu ku xirmay quarter 2 minus 14,
quarter 3 muxuu ku xirmi doonaa ma minus mase plus waqtiga iyo waayaha ayaa sheegi doona ethereum saaxiib yaal haddii aan fiirino ayadana waxaan u jeednaa quarter 2 geeda ku xirmo minus 25.28% inuu ku xirmay aan u jeednaa haddana ku furmay quarter 3ga 12.27% quarter 1kii hore wuxuu ku xirmay 29.26 ee ku xirmay oo hadda quarter-kan ayaaba yaracaynta haddii aan fiirino monthly-ga marka monthly return haddii aan fiirino bishii January waxaan u jeednaa BTC-da inay soo xareysay -10 inay soo xareysay bishii Febraayo -14.94 bishii March ayaa xoogaa percentage yar oo 1.81 soo xareysay oo plus ah sidoo kale waxaan u jeednaa bishii April plus 11 inuu soo xareeyay ayaan u jeednaa bishii May inuu soo xareeyay 3.41 ayaan u jeednaa oo minus ah bishii June oo hadda dhamaatay -20.48% ayuu soo xareeyay khasaare ah bishan July wuxuu ku furmay plus 7.1% waa doonaa meesha uu ku xirmo haddii aan fiirino sanadkii 2025 bilaha balaaska ah waa bisha koobaad ilaa iyo bisha afraad bisha shanaad bisha lixaad bisha toddobaad iyo bisha sagaalaad ayaa balaas ahaa 1 2 3 4 5 6 bilood ayaa wuxuu ahaa balaas okay 6 biloodna waa minus okay haddii aan isla fiirino stock saaxiib yaal waxaan u jeednaa shirkadihii ugu waaweynaa inay ku jiraan minus haddii ahaa lahayd dhinaca Nvidia haddii ahaa lahayd shirkadaha Oracle haddii ahaa lahayd dhinaca iyo Dell waxaan u jeednaa inay ku jiraan minus marka Microsoft oo kale Apple oo kale way kacsan yihiin si guud marka bullishka ayaa badan marka saaxiib yaal suuqa laga faa'iisto fursado fiican ayuu bixinayaa saaxiibada qaar nala soo xiriiraya wixii caawimaad waa diyaar mar walba oo waxaan u taaganahay mar walba inaan dhalinyarada caawino marka saaxiib yaal laga faa'iisto fursadahan maanta suuqadan financialka waa Janis taas waa inaad aragtaa haddii aad muuqaal ka heshay like saar subscribe saar YouTube ka saaxiibada la wadaag